كما عدوا مدى jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo si rasmi ah loo furay 1969kii soo saartay aqoon-yahano fara badan oo Soomaaliyeed balse ay saameyn ku yeesheen dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray dibna loo howlgeliyay 2014kii ayaa dhawaan soo saartay 131 arday kuwaas oo dhameystay kulliyadaha sharciga dhaqaalaha beeraha waxbarashada iyo xanaanada xoolaha si loogu diyaar garoobo qabashada xaflad uu heerkeedu sareeyo ayaa waxa wareegta ka soo baxday xafiiska rektorka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed 3 bishii Febraayo 2019 taasoo lagu magacaabay guddi ka kooban 12 xubnood kuwaas oo loo igmaday qorsheynta iyo talaka bixinta qaabka ugu wanaagsan ee ay tahay in loo qabto xafladda lagu maamuusayo ardayda qalin jabisay munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay marti sharaf darajadoodu sarreyso oo ka mid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahna duqa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wasiirka waxbarashada rektorka jaamacadda iyo xubno kale oo ka socday xukuumadda golaha shacabka aqalka sare gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga diblomaasiyiin ka socday dalalka caalamka waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa marqaati ka noqday munaasabaddan ay ku qalin jabinayeen dufcaddii 20aad iyo dufcaddii ee ka baxda jaamacadda burburka dalka kadib madaxda ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadisay ardayda qalin jabisay iyo guud ahaan guusha xusida mudan ee uu dalku gaaray rektorka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaali oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa si qoto dheer uga hadlay dadaalada laga soo maray dib u yegleelida jaamacadda iyo halka ay higsanayso madaxweyne 2014 haasan 13kii markaan jaamacadda ummadda waa soo nooleynayna wax la aamino iska daaye waanu wada qoslay wax la aamino warkeeda qosol xarago inaan mataqaana waaranahay waliba maadaama cirra aan leeyahay dibadana aan ka imiday oday mataqaana soo asaastaqayo isu sheekayna si kaligiis inaan nahay ayaa la isu sheegay waxaan xasuustaa maalintii ugu horeysay shirkii ugu horeysay ee la qabtay golaha tacliinta ayaa waxaa ii yeeray madaxweynihii markaas xasan sheekh maxamuud ii yeeray wuxuu Jimcaalo jaamacaddan magac iyo sharaf ay lahayd magaceedii sharafteedii waa la duugan tahay haddaadan magaceedii iyo sharafteedii aadan ku hay karin ha soo noolaynin oo sharafta ka qaadan waxaan ku idhi madaxweyne ballamaan kuu qaadaya haddaas adiguna i kaalmayso marka Soomaalida waxay tidhahdeen sulugtay maanta magaceedii iyo sharaftii ay laheeday mudane madaxweyne way la taagan tahay wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii soo xaadirtay xafladda qalin jabinta ayaa ammaan u jeediyay waalidiinta iyo ardada ku soo dhiiraday xilli adag inay la jaan qaadaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isagoona ballan qaaday in la tayeyn doono waxbarashada dalka mudane madaxweyne waxaan jecelahay inaan ammaano waalidkii iyo ardadii isku soo biimeeyey in ay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed markii albaabada u furnay ay soo galaan waalidkaas iyo ardaydaas waxaan leenahay aad iyo aad ayay u ammaanan yihiin taariikhdana way xusi doontaa dariiqa wanaagsan iyo dhiirida iyo geesinimada aad samayseen waxaan jecelahay halkanna laga sheegay mudane madaxweyne barayaasha Soomaaliyeed ee runtii mujaahidiin ah ee go'aan ku gaaray waliba hadda annaga xukuumaddeena way fiican yihiin oo mushaarku haba yaraada laakiin lama waayin bil baa Allah ka dhigay laakiin muddo dheer mushaar la'aan ardayda hor taagnaa macallimiintaas waxaan leeyahay ilaahay khayr hayda siiyo waajibkiinni waajibaa ku darteen waddankiinna iyo dadkiinnana aad ayay idiin xusuusan doonaan intaa markaa iraado mudane madaxweyne waxaan jecelahay in aan hortaada ka ballan qaadno bahda waxbarashada haddaan nahay annagoo isku duuban haddaan nahay dalladihii waddanka tacliintiisa hoose xooggooda hayay haddaan nahay jaamacadihii waddanka oo kol dhow haddii eebba yidhaahdo cabir la wada saari doono
haddii aan nahay mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka shaqaynaysay waxbarashada waxaan rabnaa hortaada inaan ka ballan qaadno in aan tacliinta u soo jeesanayn. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga oo ka mid ahaa diblomaasiyiintii shisheeye ee lagu casuumay munaasabadda ayaa ka sheekaysay taariikhda jaamacadda oo uu door ku lahaa Talyaanigu iyada oo hoosta ka xariiqday in waqti dheer la sugayay maalintan qalinjabinta oo ah mid taariikhi ah oo ay jaamacaddu dib u dhalatay. The Italian development cooperation in Somalia aims at offering valuable education and training opportunities, boosting scientific research activities and promoting the standardization of learning paths. These actions are put forward in partnership with Italian universities who work in close collaboration with the Somali National University, thus providing an important contribution towards the achievement of high-level academic standards. Today's ceremony, and I'm actually very impressed by the wonderful organization of this fantastic ceremony. This ceremony is part of a wider effort from the Somali government to address the roots of the country's past instability, providing answers to the aspirations of the Somali civil society, and crafting the rules and institutions that will lead Somalia to prosperity, peace, stability, and democracy. sanado kooban gudahood jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxay dadaal xooggan ku bixisay soo celinta xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda kala dhaxeeya jaamacadaha dunida. Professor Gordon Nododomzi Zade oo ah madaxa jaamacadda Val University of Technology ee dalka Koonfur Afrika isla markaana ay jaamacaddiisu calaaqaad toos ah la leedahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay sida ay barakaalayaal ka tirsan jaamacadda ummadda isla markaana diyaariyay jaamacadda Val shahaadadooda masterka ay firfircoon iyo aqoon ugu muujiyaan halka ay joogaan. In 2015, the Val University of Technology was the first university in South Africa to sign a memorandum of understanding with the Somali National University. As we speak, we've got 5 junior lecturers from this university who are pursuing their master's degree in engineering at our university. And I'm pleased to say that they are doing exceptionally well. There will be no reason why they cannot graduate. It is because of such excitement that we want to congratulate this university as well as the students who will be walking across the stage. This is a momentous occasion for you. Well done and congratulations. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahna duqa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo gabagabadii xafladda hadlay ayaa bogaadiyay aqoon-yahanada Soomaaliyeed doorka ay ka qaateen in dib loo furo jaamacadda iyo helidda dhalinyaro waxbaratay oo ka qayb qaata dib u dhiska dalka. waxaan ogahay ardadu inay geliyeen juhdi badan, waqti badan, dadaal badan inay geliyeen, maantana ay mirihii ay guranayaan maanta oo ay qaadanayaan shahaadada u qalanta sida la sheegay ee tayada leh. waxaan rabaa dardaaran inaan siiyo dhalinyarada. ha ugu horreyso deyntii la geliyey bacdamaa aysan lacag ku dhigan jaamacadda inay dib ummadda Soomaaliyeed iyo society-ga ay dib ugu celiyaan, ay ugu adeegaan dib u dhiska dalkooda iyo mujtamacooda. dardaaranka labaad oo aan rabo inaan siiyo waxay tahay ardada maanta qalin jabisay waxay wajihi doonaan xaalado kala duwan. waxay geli doonaan halgan nololeed. waa garan karnaa 4 sano soo dhigteen, 5 sano ka hor 6 sano ka hor go'aan ayay qaateen inay wax bartaan oo jaamacad aadaan oo maaddo ku takhasusaan. waa u dhabar adeegeen, way focus gareeyeen, waxay lahaayeen hadafkoodii wuxuu noqday xaalad kasta oo lagu jiro 130kaas inay maanta noqdaan dufcaddii ugu horreysay oo qalin jabisay sidii dalka uu burburka ugu dhacay. halgankoodu hadduu bilowday, halgankii nolosha page ama bog cusub yaa u furmay. waxaan rabaa marka anigu waxaan rabaa inaan siiyo talooyin
talooyinkaas waxay tahay qof walba oo dhameeyey jaamacadda waxaa laga rabaa inuu qorshe leeyahay, waxaa laga rabaa inuu hadaf iyo gool leeyahay, waxaa laga rabaa goolkaas uu leeyahay oo ahaa kii jaamacadda aad ku dhammayseen xaalado iyo duruufo adag dartood aad ku jirteen. kani waa ka duwan yahay, wuxuu ka duwan yahay waa mid mustaqbal ah. waxaa la rabaa inaad qorataan qorshe 5 sano ah ama 10 sano ah oo aad leedahay 5 sano kadib xaggee adduunka ka joogaan, xaggee nolosha ka taagina, horumar intee la-eg ayaan samayn doonaa. waa inay ku muuqato oo vision aad leedahay. jaamacadda ummadda oo ka mid ahayd jaamacadaha dunida ugu tayada badnaa ayaa hadda ku dadaalaysa inay doorkeedii mar kale ka soo dhalaasho sannado badan oo uu dalku burbursanaa, jaamacadduna aysan shaqayn kadib. iyadoo durbaba maamulka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed uu sheegay inay soo celiyeen dhammaan xiriiradii jaamacaddu ay la lahayd caalamka intiisa kale, ayay haddana jaamacaddu waxay rajo weyn ka qabtaa in dhowaan ay hirgeliso dibna u soo celiso dhammaan dhismooyinkii iyo weliba dhulalkii jaamacaddu ay lahayd si bulshada Soomaaliyeed loogu adeego. jaamacadda ummadda dhiiga anfacdo adeega waxbarashaya lahay oo aabbataahe ogsoono. jaamacadda ummadda dhiiga anfacdo adeega waxbarashaya lahay oo aabbataahe ogsoono.